السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta inta hadal ayaan ka dhiibanaya hadalka aan ka dhiibanayo waxa waaye horta waxaan la yaabay Atoosh yare ninka dukaan wuxuu u furtaa ma taqaanaa horta dukaan qofka ma ko furto oo ku ganacsada hadduu ganacsigiisa oo gabagabaabo oo marana dukaanku isku xiraayo meelo kala boo jirsadaa maanta ul maslaxa adiga dukaan adiga ku ganacsiyaysa maanta ma hayna xaaskaaga ma ahayn maxaa yeelay qofka xaaskiisa uu dhaqaaleystaa meel buu dhigtaa uu xanaanaystaa wax walba ku samaystaa mafaanta adigu kaliya dardarmeedii adiga naagta dhaxta joogteen maanta xanaaqin in lagu fadaxaysto social media waa lagu fadaxaysaha ma ahna dhulka lagu la galaa waayo adaa isku keento ma cidku marka waxaa kaloo aniga aan ku sheegaya waxa tahay mataqaana walba dukaan ganacsi oo ku ahay waad ku ganacsiyaysid haddana waxaad la xanaaqsan tahay jecel aa u qabtid maaha ganacsiga iyo ka go'in asleedahay marka saaxib naag lagu ganacsado inaag oo la qabo oo guri joog ah tahay isku mid maaha marka walaalkaygiiyo xaaskaaga adaa social media wareejisay adiga meel walba geysatay adiga mar walba dhimis bartay adiga mar walba meel walba aad wadatay marka ha ka xanaaqin haddii si caadi ahaan loo fiirina maslaxa ma qabtid baad hadda diiniya la fiiriyo adigu muslim ma tihido meesha ku asa yaa ninka muslimka naagtiisa wareejiyayo meel walba uu geeyahay Nairobi badda la galaayo yaa ma aragti wiliga la waxa dad muslimiin badan as qabaan waa may saaxib marka muslim awal ma qabin haddana ma qabtid taasi waa xaqiiqo jireerta dhinac galnayo hal ilaa waa kaliya Nairobi mid kala soo qaban kartaa bal arkaa ku diidi yaa kala qurwa doona